guursado cream doonayo inaan gadaal idinka tuso laakiin qisada ayaan ku horeyn doonaa qisadan waxa ii soo diray inaan maxamed la yiraahdo oo ku nool waddanka UK sooyinaadeed far badan baa la soo diraa laakiin tan waxaan uga soo doortay ama aan uga soo dhex baxay waxay inoo noqon doontaa wacyigelin dhalinyaro aad iyo aad far badanna waxay u noqon doontaa feejignaan ina ay mataqaanaay waxyaabahaas oo kale ay ka feejignaadaan ama ay mataqaanaay iska ilaaliyaan hadalkeena ku daalinin inaan UK degan oo maxamed la yiraahdo ayaa sheekadan soo diray wuxuu igu yiri waddanka UK in badan deganaa inankuna dhalinyaro ahaa da'diisu saamay weyn wuxuu waddankii baan tagay waddankii markaan tagay buu yiri aan joogay buu yiri muddo ilaa bilman ah saaya wuxuu lagu qalqaalay lagu yiri guurso wuxuu yiri inaan baan is aragnay inantana aad baan uga helay buu yiri runtii alfun ku adeegtay waana guursaday inantii saacate sheekada waan soo gaabanay saabkooda saacate wuxuu inantu marka aan guursanayay dadka intii igu xirnayd intii ila socotay inanta laftigeedii xalaal wax la sheegay ma jirto aniguna si indhala ayaan inanta ku galay kuna guursaday wuxuu yiri muddo markaan inantii wada joognay ayaa wuxuu yiri sheekooyin yar oo xanxan iyo waxay soo gargaaray dulduul inantu inay xanuun qabtay xanuunsanaysay yadii ayaan ku yaafkeedu la tagay waxaan ku dhahay yiri sheekadan soo gaadhaysa maxay tahay waxay igu tir walaal ama kanax ama ku farax xanuunka caynkaas iska leeyahay ayaa ihaya de wata sheekada lagu sheegay wuxuu yiri waan xay aad iyo aad baan xaq bilaadan ahay dadkii igu xeernaa iyo dadkii ila joogay iyo dadkii gabadha ii galbinayay iyo dadkii mataqaana igu qabanqaabinayay inta guursado kulli wuxuu wada ogaayeen dabcan dadka wada jooga de meesha waa iska yartaayo wala is wada ogyahay runtii laakiin qof wuxuu iga qabtay iyo qof wuxuu yiri maxay siiyay buu yiri wacyigelin iyo qof igu yiri war ka joog toona midna ma ay jirin wallahi wada aamusay buu yiri shubba la wada yiri iyada laftigeedii aan guursanayay wuxuu yiri dabanka way ii dhigtay shubba ii tiri saacati bal anigu waxaan isweydiiyey qof la aadana oo islaama oo walaalkaaya oo shahaadinaya haddii adiga xanuun iyo dhibaato ay kugu dhacday halkaad adigu ilaahay uga toobadkeena ilaahay ka bari lahayd qof kale inaad halagsid oo aad xanuunkaad qabtay aad u qarisid oo aad mataqaanaa future-kiisa halagelisid oo aad naftiisa ku ciyaartay maxaad ka helaysaa intii waa wax aan aad iyo aad uga naxay haddaba anigu waxaan inanka UK buu joogaa UK buu kusoo noqday wuxuu dhakhtaradaan tegay dhiiggii iska qaaday xanuunkii waxaan positive buu igu noqday wiil walaalo waana qabaa laakiin qarsan maayee dee dhalinyarta fara badan wuxuu yiri Soomaaliyeed ee tayada kale ku socota ayaan doonayaa inay ila qaybsadaan kana joogan kana foojignaadaan waxaan idin farayaa haddaba oo idinku daraya qofka bilaadanka marka aad guursanaysaan kullay guur uu dhacaya oo ma joogsanaye qofka bilaadanka marka aad u tagaysid iska hubso caafimaadkiisa wuxuu yahay qofka dhakhtar iska gee iska eeg adigaaga laftigaaga dhakhtar tag yacni waraaqiheenni adinkoo sito oo qofkana aad ogtahay inuu caafimaad qabo adna aad caafimaad qabtid dabeetana sidaa isku guursada laakiinse qof aanad garanaynin daladalaqadoola daf intaad tirahdid nafta wax ka qaalisani ma jiraan yani maalin hadduu madaxa ku xanuuno waad ogtahay dhibaatadaad maraysid macdala waaba naftaadii dhammayd weeyaan ayaa leynka ku jirta markaa iska hubsadaan idin leeyahay soomaaliduna waxay tiraahdaa badanaa marka la yidhaahdo qofka ordo dhakhtar tag ama ise soo baadh maxaan iska baadhaya maxaad igu ogay yacni waxay u qaataan in yacni ataag iyaga lagu samaynayo oo kale ataag maaha maanta hadduu qof igu yidhaahdo ordoo walaal dhakhtarka tagayso soo baxo markaa naxariis baan arka waayo caafimaadkayga ayaan soo baadhaya marka qof aan warqad sidanin qof aan dhakhtarka geynin aanad iska hubsanin caafimaadkiisu inuu sax yahay runtii inaad naftaada ku haligtid oo naftaada ka dulgaysid qalad baan u arkaa runtii intaasna waxay iga tahay wacyigelin bay iga tahay maxamedna waynu soo dacaynayna in ilaahay caafimaadkiisiyo taama in ilaahay siiyo in ilaahay xanuunka ka dulqaado inta xanuunka qabtoo dhanna waynu u soo ducaynaynaa dhammaantoodba laakiin haddaad xanuun qabtid waxaan leeyahay xanuunka ilaahay baa kuu keenay ilaahay toobadkeen bal-aadanka inta caafimaadka qabtana inaad la goysid oo aad u qarisid oo aad u dhoomatid oo aad tiraadid amba xanuunku waan qabaa maxaa iga galay dadka kaale taas waa xaaraam weeyaan runtii waxaan doonayaa kale inaan la qaybsado creamkan oo aan anigu isticmaalay runtii aad iyo aadna waan uga helo weyna i anfacay waxaa aniga anfacay waxaan jeclay inaan hablaha Soomaaliyeed oo dhan la qaybsado creamkan waxaa haysa amalkayse waa creamka amalkayse weeyaan creamkani kani waa night cream habeenkii markaad seexatay ayaad marsanaysaa kanna waa day cream saa aragtaan waxa weeyaan oo maalintii aad marsanaysaa
marka creamkani runtii anigu intaan isticmaaliyay isbedel aad iyo aad weyn baan ku arkay wuuna i anfacay waa natural wax dhibaato ah male jidhkaagana nuurkiisa ayuu soo celinayaa anigu si aad iyo aad weyn ayaan u soo dhaweynayaa waana amaalkiisa ka helaysaan waa garanaysaan amaalkiisa meesha lagala xiriiro runtii qofka walaalkaayana yacni horumarku gaaray iyo wanaaga uu bulshada usoo kordhinaya in mataqaanaa lagu hambaliyay ayaan aad iyo aad u jecelahay amaalna inaan ku hambaliyay aad aad u jecelahay creamkana hablaha Soomaaliyeed wajiga ka qayrmay inta u baahan mataqaanaa wajigooda dhibaato inay ku dhacdo soo celiso creamka sida ogaadaan idin leeyahay amaalkiisa ay ka helaysaan inta ayaa maantayga eg tahay aad baan dhammaantiin bay idin wada salaamaya meel kasta iyo meel walba joogtaanba qayr iyo bashbash iyo barwaaqo ayaan idinkaga tegaya anuun isku ognahay xaggan kalena ogaada naftiina ilaaliya naf wax ka qaalisan ma jirto yani ciyaar iyo naftiina idinku dhaafin baan leeyahay dee qayb